guddiga mashruuca wadada ceel daahir ceeli gaabo ayaa maanta gudoomay lacag dhan $22,482 oo ka timi jaaliyada muxsiniinta ah ee Puntland iyo Jubaland ee Stockholm ee Sweden waxaana soo ururiyay jaaliyada maakhir. guddiga wadada ceel daahir ceeli gaabo ayaa si rasmi ah ugu mahadceliyay walaalaha muxsiniinta ah ee lacagtan soo gaarsiiyay iyaguna ugu talagalay inay ka qayb qaataan wadada ceel daahir iyo ceel gaabo. Sheekh Ali Maxamuud Xasan, Sheekh Cabdi Xaashi Cali Siciid, Cabdiraxmaan Maxamuud ayaa dhamaantood oo ah guddiga ayaa ka mahadceliyay lacagtan soo gaartay. halkan ku wareejino lacag ay soo direen jaaliyada Jubaland iyo Puntland ee Stockholm magaalada madaxda wadanka Sweden. lacagtaas oo ay soo ururiyeen jaaliyada maakhir ee Stockholm. lacagtaas oo dhan $22,482.56. lacagtaas oo lagu wareejiyay wadada ceel daahir ceeli gaabo ayaan halkan jeegeedii ku wareejinaynaa oo guddigii wadada ceel daahir ceeli gaabo ay la wareegeen maanta. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa jaaliyada maakhir ee aad isu xilqaantay iyo jaaliyadaha Jubaland iyo Puntland oo lacagtan sadaqada la baxay. ilaahayna meesha ay ka soo saareen intii bixisayba lacagtan wax ka khayroon ha ugu bedelo hana uga dhigo miisaankooda xasanaadka wax ay insha Allah taala ku farxaan maalinta qiyaamada. saasaan rabbi ka rajaynaynaa. guddigiina iyaga ayaa qaraalkii muujinaya oo la wareegay haddii alla qadaro. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. muxuu ah lacagtaas waan soo gaadhay Ali Maxamuud Xasan ayaanu ka wareejinay guddiga ayaana hadda gacanta ku haya lacagtaas jaaliyada Jubaland iyo Puntland Stockholm. waxaanu leenahay waa mahadsantihiin meesha ay ka soo baxday ilaahay wax ka khayr badan hayna siiyo. waxay ku soo aaday waqtiga ugu munaasabsanaa uguna baahida badnayd wadada sababtoo ah hadda ayaa waxa la bilaabay fayskeedii daamurka ahaa. marka mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay ilaahay hayna ka ajir siiyo. waxaan mar labaad baraarujinayaa in lagu daydo muxuu ahaa jaaliyadahaas isu xilqaamay inay wadankooda wax ka qabtaan. reer Jubaland waxaan leeyahay waa mahadsantiin khayr badan Allah hayna siiyo. waxaan leeyahay wada fiican ayaad sameyseen dariiq wanaagsan weeye in la isu kaashado hadba meeshii uu dhib ka jiro. hadda insha Allah taala berrito markii ay Jubaland hawlo noocan oo kale ay ka yimaadaan waajibku waxa weeye in maaragtay ayakana markooda la gurmado. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan dardaarmaynaa dadka kale ee jaaliyadaha kalena inay sidaan oo kale sida ay isugu hawleen qoladaas jaaliyadaha maaragtay Stockholm inay qolo walba oo dadka jaaliyadaha qurbaha ku nool ee ku abtirsada deegaanadan iyo Jubalandba inay sidaas oo kale iyo Soomaaliyaba ay maaragtay uga hawl qaataan oo uga hawlgalaan hawshan jaaniska ah. sababta waa wax ilaahay leeyahay wadada ilaahay baa iskale waa wax maaragtay muhiim ah waa wax sadaqa jaariya ah. ilaahay waxaan uga baryaynaa in sadaqada dadka muslimiinta ah ee khayrka badan meel fog ka soo dhiibtay wadada aan ugu tabarucay in ilaahay ka aqbalo. aad baan ugu duceynaynaa in ilaahay sadaqadooda ka aqbalo. sadaqa jaariya weeye waana u mahadcelinaynaa. waxa kale halka uga baaqaynaa jaaliyadihii kale ee nala soo xiriirayay Australia, New Zealand, gobolada Mareykanka kamida in baahidii aad hadda culayskii bilaabmay baahi badnina taagan tahay inay hawlaha soo dedejiyaan ururintii ay soo gabagabeeyaan insha Allah ay iyaguna dhaqaalihii ay ku ballan qaadeen gacanta ku hayaan oo nagala soo xiriireen inay soo gaarsiiyaan. waxaa diyaargarow xoogan ka socdaa 10 kiiloomitir ee ugu horeysay ee laamiga la saari lahaa bisha soo socota. waxaana la saaray labadii laayar ee ugu horeysay. waxaa la diyaarshay tarabiinadii biyuhu mari lahaayeen iyo buudajiifkii ugu horeeyay ee laamiga ah. Yuusuf Saalax Maxamuud Yuusuf Yare, Ismail TV, Boosaaso, gobolka Bari.